بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحان سلام يا جودهان شعب الصوماليات دلك دبدي سبكون نول عاو أي بيش أكتوبر تهاي تضبدي وحان ربا إن ضدك الصوماليات لو ذا قدر قضب كوات قولها وضتشي قرن وحاو سوق بتاي أما وصويا شيء intii aan xilka joognay 9 kulamadaas dhammaantood waxaa ka soo baxay go'aamo muhiim ah oo lagu xaqiijiyay himilooyin waaweyn oo la xiriira midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed amniga iyo dabargoynta kooxaha khawaarijta horumarinta iyo dib u habaynta dhaqaalaha kor u qaadida adeega bulshada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga garsoorka iyo cadaaladda iyo dib u eegista dastuurka labadii bishan October ee aan ku jirno ayuu furmay kulankii tobnaad ee golaha wada tashiga qaran waxaana lagu soo bandhigay ajendayaal muhiim ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta iyo xoreynta dalka dib u heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed iyo arrimaha doorashooyinka dalka haddaba waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo shirkaasi wali waa socda madaxda ka soo qayb gashay shirka ee sharafta leh waxay ku jiraan la tashiyo la xiriira qodobada qaarkood oo muhiim ah marka ay la tashiyadaasi dhamaadaanna waxa la soo saari doonaa go'aamo iyo warmurtiyeed waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed guul shirkana insha Allah taala wuxuu ku soo dhamaan doonaa ama ku soo gabagaboobi doonaa guul ayuu ku soo gabagaboobi doonaa insha Allah intaas marka laga tago waxaan rabaa inaan u cadeeyo mar kale dadka Soomaaliyeed inay naga go'an tahay ilaalinta midnimada gobnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed ilaalinta karaamada Soomaaliyeed iyo inaan ka fogaano wax kasta oo keeni kara kala qaybinta dadka Soomaaliyeed waxaa naga go'an in dalka horay loo wado oo aan dib loo celin hadday noqoto siyaasadda iyo hadday noqoto dhaqaalaha iyo hadday noqoto arrimaha bulshada maanta meeshaan marayno waa meel wanaagsan waxaanan naga go'an inaan horay u soconno oon dalka hormarino waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan kuna taageeraan dawladda Soomaaliyeed in horay loo socdo oo aan dib loo noqon in laga shaqeeyo midnimada in laga shaqeeyo wada shaqeynta hay'adaha qaranka in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed iyo in la walaaleeyo iyo in la soo afjaro khawaarijta dalkeena dhibaatada ku haysa si aynu ugu noolaano dalkeena karaamo xurriyad iyo cadaalad